Hooyo wiilka maalin dhaweyd kuu sheegaya ee la socda banaanka uu taagan yahay. Wuxuu banaanka la taagan yahay marka soo gal leh. Kursigan fariiso. Hooyo waa tanahay. Hooyo seeta. Waa fiican hooyo wiilkayga soo dhawow magaca. Ilka asal idhaa hooyo barasho wanaagsan. Barasho la mid hooyo guriga marti kama tiide soo dhawow. Hooyo waa dhawahay gurigana marti kuma yihiin dabcan gurigayga waaye. Milyuuna dabcan way kuu sheegtay dad is caalmado wax ka dhexeeyaan ahay. Intaani in ka sii badanna waa rajaynayna isla sii joogno. Marka inasaas u sii ogaatay rabo hooyo. Haa hooyo wax walba waa ogaay dad dhalinyaro is caalmaday inaad tihiin laakiin dhalinyaronimo iyo darbi istaag looma baahno. Waa inaa hor socod noqotaa arrintaana iska soo gabagabaysaa. waa hadaa gabadha diyaar ah u tahay. Hooyo dabcan nin familku u imaaday waa dareemi kartaa inuu dhalinyarnimo iyo ciyaalnimo u soo wadin. Kaliya hal culays jiro hadda safar raba ina aado. Safar shaqo ah. Muddo ku soo maqnaana intaas kadib marka imaadan waxaa rajeynaa wax walba sidii la rabay inay noqdaan. Marka intaas yarsaa in la dulqaataan rabaa. Hooyo si wanaagsan waa kulli ayada danba ugu jirto waxbarashadii. intii ugu dambeysay bay ku jirtaa waxbarashadeedu bay iska sii dhameystiranaysaa. safarkaagana Allah kuu fududeeyo insha Allah oo kuu soo duceynaa. Hay hooyo waa mahadsantahay hadda noo sii baxa. Hay wiilkayga nabad ahaa. Hadda safarka dhab muu ka yahaado wax walba og. Sababta hooyo ugu imaado Soomaaliya in wax dhibaysa dhicin. Xas macquul ma ahan safarka ma ka baaqi kartid miya. Arrimo waalida meeshii imaado Soomaaliya aabbaanay ugu qasbooyo. ilaa waa inaa wax qabsatid oo dhaahintaada guursan ka hor. Ilka casaani ahaan waxaa ila qurux badan maadaama hooyo u imaatay. inaa hooyo wax walba oo runta la wadaagno. waxaa laga yaabaa fikirka aabi inay bedesho wax walbana isaas noogu hagaagaan. Fikrad fiican waa intee wax ka bilownaa. Si walba adiga ku heli karana diyaar waa inaa sameeyo. Adi kaliya hooyo runtu sheeg markaas ayada wax walba nagu caawinaysay. wax walba waxay ku qurxan yihiin milyoon. hooyo ada iga dhow. adaan wax walba u sheegi karo kadib aniga wixii tala ah. iyo wixii aad sameynay safarka xitaa maanta inaa ka baaqda isku day hada arintaas oo la wadaagtid. Allah anisa ula wadaaga ma qaaniye laakiin wax walba danteeda ku jirtay ana ku soo wacay adaa bixin. ay waayahay. حضرت قارية جاي عيلتنا عين الديدا العجبيو عرلمي ذا إيو روح لعيدنا عيدكم أنا कल रास्ते में गम मिल गया كيف أنت ربي هو إن الباب كبحنا إلى هذا مليوني था लग के गले में रो दिया. Hee maxaa u baahneedaba أبى دكان كبير فأنت كروا يسوق gurigan hooshiisa iska dhax harka baadana banaanka ma aadi karaa. Haye waayahay. जो सिर्फ أو كالي مليون محاك قلت المكي أركت وقام حول بودا मेरा था सिर्फ hooyo anise way ka soo dartay bee sariirtaas la inay iska saarnaatay rabtaa. waxay guriga kaga baahan tahay may soo doonato wixii banaanka anaaba ka dabarayay. adee wax ka maqlay la hadal. xeero u qabato maxay ka dhibaysaa gabadha waa ogtaa xaaladeeda wax walba u baahato u geey. hooyo ayada xataa muu wanaagsan caafimaad ahaan. waxaa rabaa inaa kuu sheego. iska daa waxa oo maxaa ku helay naabal kaale hooyo caloosha liga haya isu caloosha ah oo marada maxaa la haysataa marka naabal kaale calool lahaanine hooyo caloosha xanuunayso ku soo laabana. kaale bal horta kaale marada maxaa u haysaa hadaa ku arkasaan uu nagu haysaa. hooyo marada caadiya iskaga heystaa musqula soo galaa horto. haye bal musqusha markaa ka soo baxday imaaw yaab ana arkay. hee gabadhan gurigeeda dhex joogta hadaa arka 9 marada uu ku dhagan. haye eed wax dhiba ma jiro. eed wax dhiba saas ma jiro gabadha adeerka dhalay wiila xumeeyay wiilkaas waxa rabaa nambarkiisa inaa ku siiyo adaa nin raga la xisaabtantid. maxaa waay dhibka uu geystay wiilkaas. eed macaan dhibkaas hadhow waa kuu sheegaa ka wada hadlaynaaye muhiimada lambarka ku siinaa wiilka soo qabo ii keen. yaa waay gabadha uu dhibka u geystay. eed tan gabdhaha ugu yar waaya aniso. lambarkiisa ii sheeg hadii sawirkiisa la heli karana halay tuso. naya milyuune hee hooyo anisiina u tagto waxaa tiraahdaa wiilka maalin laweed lambarkiisa ka qaaday sawirkiisa hadday heesa ha keento. haye hooyo sawirkiisa ma hayiye dhaada facebooka kala hadli jiro facebookana sawirkiisa ma u saarno mana ugu jiro. haye dhib malaha gudul buu gal anaa ka soo saaraya ka seexa arrintaas.
waxaa ku weydiiyey bal gacmahan sii daayo maradaana daa adiga sidaan unu heystay maxaa inta ku qarisaa horta hooyo wax ma qarinayo waxaan dabeecadeeda iska tahay weligii asaan dhihi jira maxaa hadda soo galay ama waxay moodaa caruur laba jira ka xunnahay lambarka aad wacday wuu dansan yahay ka xunnahay lambarka aad wacday wuu dansan yahay ka xunnahay lambarka ninkaan aan lambarkiisa daalnayn oo mar walba dansan ama uu lambar ewer aanan jirin gabadhi siiyey weligay aa qabsan jiray ka leexi gacmahaaga naasiida gacmaha naheedha calooshaan adagna maxay ahayd sita qof dhagaxyo cuno hoogto waxay calooshaan dhagaxa hooyo maxaa wax dhiba ma jira caloosha haddii xanuunaysa leh waa maxaa haa saaxiib yarka salax isbalansteena lambarkaaga soo qaadee ee meeqasaca galaysaa warniyo waa u sheegay caawa maahano lambarkaan la imaano lambarkaana kaa soo wacaa haa lambarkaana iga soo waceen diyaar waa saaxiib haye laakiin brograam kala kaa lahaayniyo intay degantii oo kaa helaa caadile salax kama foginiyo xaafad la deganahay okay markaas salaxa xaafada agtaas la deganahay inaan kulannaar waa arrin muhiima kaa leeyahay miyay imaan kartaa haye diyaar waa walaal oo ku umaaha haye waayahay oo ku sugaa oo hadda maxaa soo wadaano waalidkaaga dhalaanka sida loo dhalayna ani barto naacaloolna kuma xanuunaysee waxa ku haya sheeg oo iga raali noqo arrintaa mar badan harabiina kuu sheego waa kaa cabsanayay hay dhihin kuwa horaa naxdin ugu soo daalo uu raaleeya bis warniyo ku aawaniyo meesha ugu balamis waa taaganihi anigu waa taaganahay muku diidaada ku aaw meel qaldan ama taagantaa warniyo qofkaas koofid uu soo jeeda ma taani haa anigu waa kaale hay waa ku imaan ku jeeda कल रास्ते में गम में saaxiib arrinta salax iska dhaafay daacwad kale ay ka soo gashay inay eeg garbaxda kaaro adiga horta isiiday adiga ma qasbani adigoo ku aqoon anisoo kuma imaan iga foq dacwada ii qabtid maxaa wayni dacwaddu waxay tahay anaa kuu sheegaya horta soo baxiraan wah intaa ku raacani aaba xaafad agteeda jooga hadda ku umaa walaalkow aaba isoo wuxuu kowdhe aniga adan marka lama hayne salaxa isku uma hayna dacwada ii qabtid halkaas igu sheegay warkaala adiga salax xitaa waa iska dhahay salaxay meelahaas ma aqaan intuu ku raacdaa oo ka hela aniga brother ragnimada hadda kugu imaado igu aamintay igu aamin aniga waa ku imaha lambarkeyga waa haysatay xaafadda nin degan oo aniga dhuuman kara ma jiray adiga aniga inaan iskin horkeytaa isku dayin warniyo waxaa ku weydiinaa ninkaan dacwada ugu haysan karo maxay tahay ninkaan waxaa ka bi'i maxay tahay hadda il dambe isaartid waynoo taalaa hooyo iga raali noqo haa uuraa leeyahay aniga habaar iga dhinta qoftaan way wuxuu ka hadlaa safiiri naya iga bax guriga iga bax hooyo waa ku baryaa wiilka maalilaweed ku barayaa iska leh waana isqudba siraysana hooyo nayahe waxaa ku soo baray iyo diinta intay kaa martay qof weynaataa waxaa ku hadlaysa nin baa khudba siraystay yaa kuu diiday ninka markaa khudba siraysanaysa hooyo cidna ma ii diideenin hadda iwac lambarka iwac naya bax telefoonkaaga soo qaado ilka casa hooyaa ku rabtay hal mar degdeg u imaaw कल रास्ते में गम मिल गया था लग के गले में hooyo way xanaaqsanta ayaa tartiib wax walbay ku weydiisa tartiib ugu jawaab may dhib ma lahan caadi waa hooyaday waaye गले में रो दिया hooyo waa tanaa la hadal arag soo yaal wejigaaga ay soo hor istaajinayaan ciyaal suuqyo hooyo see tahay warseetaadaad ma naqaana ceel ku dhexe maxay tahay waxaa samaysa nin weyn baa tahaye hooyo waa ogahay inaan qalad sameeyey laakiin xal walba diyaaraa u ahay halkaa diyaar u tahay waxay tahay markaa gabadha duur cidlaa ka wadanaysa maxay igu imaaweysa dad meena dhalin hooyo way fiicnayd inaa ku imaado laakiin dhalinyarnimo ay qaadee nafii sheedaannu igu xiriiraan qaladkiinaa saxana diyaaraa u ahay bliis hooyo isdeji dhalinyarnimo kulaa wareega garkaana ku yaal intee dhalinyarnimo ku taala bax waalidkaaga noo keen iga tag guriga bax waalidkaaga noo keen hooyo wiilka ismaaleed maxaa u dharbaaxday wiilka ismaaleed kulaa maxaa kaa gal bax gurigaaga gal waree bax waalidkaaga ii keen bax iga bax guriga 2 daqiiqa kuu qabanaya hadda waalidkaaga ii keen aabo oo adiga maalanta aa safarkaaga ku diray aabo arrinaa dhacday reerkaa gabadha ka qaba isqabsane marka waxay dhaheen waalidkaaga ii keen saasaa safarka uga baaq oo ani hoolaa ku dirsaday gabadhaada ma aqaan adoo safar shalay gurigaan soo kamaada bixin haa aabo shala safaraa inta uga baxay
intaana bixin waxaa isdhaha gabadha siimar. Gabadha markaa u tagan hooyaa ku baraa ay dhahday. hooyadii markii la ibaran wax walbay ogaatay inta ma ka bixisay dhahday waalidkaaga ii keen. waraad maskaxdaada si kale ma shaqaysaa ma jiran tahay aaba ma jiran iyo qof dhanaa mas'uul ka ahay. mideeda kale adi maxaa ii fahmi lahadaa booskii aabbii hooyo waa igu jirtaa. maxay fahmi lahadaa iska leedaa boos walba hadaa kuu buuxi laha intaa maala soo ekaaleed. aaba arrinta hadda xaggaas ma taagnee. gabadha hooyadeed waxay dhahday waalidkaa ii keen hadda maxaa xal ah. ani dumar si loola hadla ma aqaan gabadheeda ayadaa ceshilayay shaqadaa kuu diray ma aadaaha amay. aabow shaqada ma ordaysay kori hoosna waa aadaya iyo hal markaala maamada qanciyo la soo hadal. anaa naagaa ku dhalin warkeeda ii soo qaadanay anaa ku dhalay shaqadaa kuu dirsa hadaa aaduysi madaxa kugu dhufanaa iga horkac. kan maxaa ii soo qoray dherigii labada dhinac ka gubtaa noqday. hadda aabahay warkiisa maa maqlaa mise gabadhaas miskiinta ah oo danaya maxaa sameeyaa talo. haywaata ay waaninaysa aaw ninki lahaa waxba kaama gelin adee afaareyga anaa isku soo gelin. faaraaga anim ku jiriya su-aal ku weydiiyey su-aashii jawaab. weji noocee adii ani su-aal igu weydii kartaa waa edab daran tahay. naftaada ku khamaarine telefoonka inaad qabatid dana kugu dirtay telefoonka qabo ragnimaduna saan maaha meel walba ku dhuumatay waa kaa soo saari doonaa. walaal Anas maxaa kugu dhacmaantay in xaggaa fadhiyo waxa ku arkay adoo naxsane. ninkan maalin dhaweed markaan fursadu ka hayay anaa iska fikiyay jaaniskan haddaana siin lahayn saacan iguma soo dhuunteen. midda kale yaa waa qofka telefoon ku dhageysanayso. maya niyo yarka ciyaalka xaafaddu waa inaa ka qabtana ma rabo. qof ciyaalka xaafadda ee maasaan dhan uga cabsanay maxaa idinka dhexeeya markaa telefoon ku dhageysanayso. maya niyo dagaal rabo inuu abuuro maalibadaa ka badiyo ma fahmin oo tiimkii ayagu ay xanaaqsan yihiin. niyo Anas oo dantaada ma taqaanid manoonni faa'iido markaa soo galayay ma iska dhaaftid. ninka fariinta noocan kuu soo qoraayo naftaada ku qamaarin ku dhahoy banooni laamiya. waxaa muu waalan yahay buu iska day. ninka haddaa ka cabsanaysaan iigey nin facaas oo ku dhihi karaa naftaada ku qamaarin iyo wax saasa. ninka maka cabsanaade niyo cabsi ma jirtay rabshina abuurtaa diidooyaa niyo caay iska dhig. niyo wadaa dantaada yaqaana koodhi laakiin banoonigan iyo maalaayacnigan iyo dhalinimadan iskaga harnayo. ayaa baayo isdij anigaad isku xaaladaan anagaas dareemi karnee. degnaanta marka hore adi maxaa kuu diiday. haye abaa waayay hadda aad xal ma haysataa. haa ani xal waa haystaa. haye abaa xalka haysatay mila wadaagi kartaa. ani wiilka isla socona wiil fiican waayaba mideeda kale anaga waa isqabnaa waa iskhudbasiraysana mooho wax oo dafiraad ahna meesha maba imaan karabo. maasha allah waa iga fiicanta wax fiican ku fikirtay wiilkan wiil fiican waa hadduu wax inkirin. haa dabcan waa ogahay mideeda kale ani waa iska daalanahay inaa jiiftaa rabaa. oo ilaa hadda miyii joogtaa ma bixin miya. aab waa bixi rabaa beriyaa rabaa hadda inaa baxo. beri ah oo anaa beentaas ii sheegay aawo tigidkaaga hadda. aaba tigidka ninkaa kasoo jartaa ii haayo. inaa been ii sheegaysa indhahaagaa laga dareemaa gabadha ilaalihiisa waxaan loo jooganaa iga daba wareegaysa ani aad isma sheegin irdaas iga degbax. beri kama dambays waa baxaa. haye waayahay beriyaa kuugu dambeyso haddaa bixiyeysa ani aad isma sheegano albaabkaas igama soo garaaci kartid. hayaaba diyaar waa warkaagaa jiro. niyo waarid hadalkiisna ma diiday aabo hadalkiisa ma maqashoo baxdi. niyo ma bixi karo gabadhaas noola soo hadlinoo runtuu soo sheegay. ayadaa is ilaalinaysa cunuga caloosha ku jirna ilaaha u maqane waaridkaa hadalkiisana maqashay niyo ordbax. niyo dhankaaga adiga wax walba way ka fudud yihiin laakiin waxaa rabaa inaa gabadha hooyadeed u tago oo wax walba aan kasoo dhaadhiciyo. niyo waa indha adagta hadaan waaridka hadalkiisa maqlo ciddisaa kadib ordaysid. anasoo dumarka markay xaaladaas ku jiraan waxay dareemayaan adi ma dareemi kartid. niyo war maku sheegaa dareen maahane 100 qofood ku dhacdaa waan laga gudbaayay. niyo waaridka anaa warkiisa maqashid wax maqal niyo. kulley dhib ma lahan beri hadda aabo abaxa aa ku dhahay inaa baxan waa rajeynaa. niyo maxaa cunugaas sidaa uga saaracsan tahay ma laga yaabo waxaad ahay in dusha lagaa saarooy. wariyaa waa dhaqan xun tahay waa kaa weynaa xadkaaga ha soo dhaafin. haye niyo danta aad taqaanida ord niyo. niyo ninkaa maxaa wada istaajiye bismillaahi. ninkan maxuu iga rabaa niyo dad maa ka dilani. sug telefoon isku boojeenaaye. haa niyo ii waran talisaataani. war hay ii waran. maasha allah fiican bro. niyo ninkan inuu ninkii yaha umaleynaa laakiin dadka islaamid inaa isaga dhigdhiga maaha. war niyo ninkaa maxay daba dhigi. haye eed wiilka walaashaa dhibaateeyey maxaa waroo iiga heesaa meeqa maalina jawaabkaas naasoo dhuumiyaa lagu arkine. ciidda ninka waa ku daba jiraa laakiin si fudud ii fakada hal maalin ajaan isku helaa.
eed wiilkaas walaasha dhibaatada u geysta mid yar maahan waxaa kaa rabaa inaad jawaab degdeg ah iga soo siiso ninkan dib ma laha eed gabadha baro inaa wax ka ogaaday hal mar igu wacaniso eed asaga markaa soo qabataa dhibaatada arki leedahay ma iska dhaaftid hadda qofka markaa wax ogtahay ku raadsanaysa iyo markaad ogay kala duwan tahay hal mar aan si ugu wacsaa wax walba uga ogaada haye eed macaan diyaar waay arag meesha ii taaganta wajigaa ba'naa ka dhow aniso kaala hooy hooy walaalkaa ku rabo abuu laguma guursan gadaashay maalin lagugu daray maxay tahay urkaan naawar gurigiis ka gal eeda dhibka kuu sheegaya ninka u geystaba waa asaga oo xitaa inay ii raadisaa rabo eeda maxay tahay qeyr mas'uulnimada adoo guriga joogtay gabadhan dhibka loogu geysto eedo macaan oo ani gabadha iima xirxirneen waana shaqaynaya waxbarashaan ku ogaa mana aqaano saa u aragta un baan u arkay qofaan asaga bis ilaalin karin sidee anaga u ilaalinaa nin asaagayga ma hadda ugu qabsadaa maxaa walaasheeda urka ugu yeeshay dawee dhacda waxaasna qadare aheede hadeerna hadduu nin ragoo ka dambeeya u arko qaladkiisa wuu saxayaay adaana taas ka keeni karay wax lee sameey sixitaan iyo baryaba meesha ma taale ama gudo u gala ama dhibka u geysto ka soo garbaxa gabadhan eeda arrintan adoo waxba dhibaato u geysanina xali kartaaye arrintan adaa kuu daayay anoo 20 jir ah sidoo nin asaagay walaashay dhibaatadan ugu geystay mar kale hadda jaanis ku hel lahaa nolol ugu ma tageen maanta haddii ciyaalka xaafadda ogaan lahayn gabadhaas inay walaashay tahay sharaf xumo darteeda oo dhiman lahaa jileecan inaa iska dhaafo ninkaas dhig inuu iga galo wax ma dhaantee xaq walaashay waa inaa usoo dhiciyaa markay arrinta labadeena bis nagu ekeed garabkaygaa taagneed markay arrinta waalidkayga ogaadeen maxaa moobilka iga qaban laadahay هايدين واكو بريا ولا حرته كوسميناي هايدين ولا inaa meel igaga dhuuman karto ma ما umaleyn ولا هايدين وحرته كوسميناي eed oo koriinimadeena kusoo daashay haddana waxaa sabab u noqone inay darteenu hurdi weyso hooya adigoo tanaanisa ka murugaysan haddana tayda kuugu daray rabbigaygana kama aanan xishoonin adigana sharaftaada waa ilaalin waaye mustaqbalkaygana anigaa ku dheelay ilaa ay goorma ilmaha saan uga carreene marka hore dhaafni ani maxaa qaban karaane ka soo qaad adoo daadaan jira haddii lagu dhaha aab malihid sidoo dareenkaaga noqon karaane maxaa isku keennahay aniga aabeyga oo nool yihiin maya sawir adoo xaaladaas ku jirnay markasta waxaa ku fikir leed muxuu noqon lahaane hooy muuqaalma dunida adigoo sidaan ugu murugoonaya inaa kusii noolaado midaan culays ay igu tahay mana xamili karo hooy iska kii cafi wana isdhibaateenayso ayadaa isku keenta marna maxay ugu fikiri weysan ilmaha inay iska soo rido nafsigaasi dembigasaas u een kabar hadduu natiijadiis noqdo ilaahay inuu umad insiin kawaran markii waalidkaa kugu ogyiina ducadaad garab kuu noqonay ka fikir weli waqti waa haysta waxaas dhan waxaa kaaga muhiimsan raaligelinta rabbigaaga welin toobadu ay furan tahay hoyo macaanay hooyo ilkaygiyay hooyo hurmudkaygiyay hooyo lama huraanay hooyo adduunyadan nolol miyay taalo naya milyan maxaa kugu dhacay naabalkaale anasow hee walaal walaal kaala hal mar magaalada dhuudhuumasha kusoo galay lambaraa ku siinaya boorsada iga soo qaad yarkaas boorsadaad ma aqaanayso aaba shaqo kuma dirin aaba shaqadaadani niyo horta ninkan meel aan ka raadinin ma lehe ama uusan xaafadan degnin war waxaa sanaa kaaga sheekeynaya orod hal mar boorsada ii soo qaad way iga dayacantee hayniyo waalantahay hoo lambarkii qorne hayniyo warniyo aniga waay waaba kana ninkii
الله صدر أنا جوا يعني وعتان كبدين قدي صاحب كيجو هدين صاحب هدين صاحب أديك مين يعني صاحب maya ani maahan haddaa isdhaqaajis madaxa kaa jebinaa horteyda qabo. مليون محاكو على الباك فر نايا مليون هاي دقيسنا فر الباك محاكو دعي maya hooyo albaabka ma furaay anaga waa ku kadeedna dunidan intaan kadib inaa sii saarnaada ma rabi. fariiso jilba jabso dadaa dembiga gasho iska dhaafa u baratimiya dhuumashada aad dhuumanaysa maxaa meel ku geemaysa hadda ورنيه وحا إيه حتى أنا إيه رأسنا سيد جورجا إيه كنت محتاني waxaasna aanu ku sheegin in afkaaga ka sheegtaa raa waxa qalad samaysan oo ogtahay sheeg وح أخذت كاسمي ماله كاله دان ركتا قعنتي يقفر ما حد عمها يجا حراني إيش كاله دان ركتا يقفر wejigaan anigu la qaylinaysaa miya maxaa awood u leedahay hadda dhafara ahaaniyo ninkaana wax u dirsaday intuu ku soo daha 3 beri maseexane dharkiina weli ma iska bedelin hurdana tacbaana la ahay ana soo faa'iido loo ma arkin boo haddaa wax u dirtidni dhub oo iska dhaha ولا لو محاي وحرتني دنبي كليا كاجل إيشك تليفون كي يقول عيا كان سحب من دايق فر دت كي قال هذا والبو ilka casaw ku soo wacooyo ah ولا كي يقول كقاو دكتني إيسار هلو ولا dhibka laguma waane dhaxalooma yeeshee maya hooyo albaabka ma furaay dunidan waa kugu kadeeda dunidan inaa sii saarnaada ma rabi. dunida inaa sii saarnaado marabi maxay tahay qof weyn oo islaam maada ahayn maxay tahay waxaa ku hadlaysa fur horta albaabka hooyo iska kee dhaaf dunidan inaa sii saarnaada ma rabi nolosheedana aniga sidaa doona ka yeelayo. naadu waxaa iska daaya maadan qof islaam ahayn fur albaabka hooyo maxaa kuugu dhacay qof weyn baa wadaheeday bisinka dembiga intaa la eegay naftaada ka gelaysa maxay tahay ilaaha wax dil maxay tahay waxaa samaynaysid hooyo murugada indhahaaga ka muuqata oo dulqaadan waaye saas darteeda wax walba uu sameeyey. furaana soo ku awaade والي أفضل طولان afduub ah gacmo waa ka xirxiranahay indhahana waa ka xirxiranahay war intee joogtaadi magaaladan yaa kugu afduuban karo aniga xataa ma aqaan meel aan joogo halow anas halow walaalkayga maxaa ugu duminaynay صوت wiilka wax walba ku ogolaya maxay iska dhigaysaa qof aan waxba loo ogoleen wiilka balansaneedeen hooyo ma aqaan hadda waji kale oo la soo baxay telefoon dhab miiga qabanayo maxay tahay oo iga qabo waay waxaas ma af Soomaali ba isii bal nambarkiisa ani wax ma ku sheega qof islaam ah taa waxaas dambana ku fikirin gurigan tartiib u joog laba dambi baa galaysaa naftaadii nafka labaad goynaysaa shaydaanka iska naaro la warakac sunnada ko ilaahay ka haddaa dad leedahay meeshan kugu imaadaan ay ku soo raadsadaan balan waa meeshaan igu hay balan waa haddaana ka shalayn anas dheedheesha ma ku aqoonina maxaa ka qaldan lambarkiisana wuu dansan yahay waxaan waa wax macquul oo dhici kara aaba anasa isla hadalnay waa lay afduubtuu dhaha teleefankiisa markaa ku celiyana waa la damiyey duubkan xayta waraa maxay siday wax u socdaan ma fahmin siday wax u socdaan ay waayaha anaa hadda imaanayo haye bal aabo asaga iyaan raadinayay bal adigana ka wardoon aabo haye warayahaysu kuma sugeen nin weyn baa tahay maxaa kugu dhacay yaa waaye adi yaa waa lahaanina milyuun hooyadeed waaye sonaga balansaneen haa hooyo arrimaha iskay qabsada wallaahi inaa idin imaado waa rabee ee fadhigaaga kuugu imaana anaa kuu sheegaya wax walba see u dhaceen hooyo warayaa hor socod ma tihide ii imaaw haye niyow anas xaggee lagu afduuban karaa anasna muxuu dembiyo galo lagu afduuban karaa hadda intee ka raadiyaa aabbana maba isooga cooyabo aabba la iska sugaa ma aqaan intaan kadib meela ka raadiya afduubkii waxaa sheegaysa maxaa waa muxuu dambiyo sameeyay wiilka maxaa ku dhacay teleefankiisana waa dansiiyay ma aqaan ani hal mar wacay gacmaha ka xirxirnaa iyo wax kale uu ii sheegay dan markaa ku celiyana teleefankiisa wuu dansanaa
adigaa dhalinyaro isla tiin oo isla sheekaysiin maxaa dembi uu sameeyaa ku ogtaha aabo aabaan wax dhibaataa kuma ogeyn kanii maalin hore wuxuu igu dhahay wiilal banooni is heesaysanaa marka wiilashaas lee ku ogaa wax kale kuma ogeyn hadda intee ka raadinaa oo isleeda waa laga heli karaa aabo maaqaan aab meelaa ka raadino ninkaa markaa ani xirnaa arimo imalayaa hal mar le hadduu meeshaa niga furlaa yurub aadla waddanka xataa ugu bixi lahay maxaa sameeyahay marka nabad dhalinyarada booni oo la dhedheeli aagi meelahaasaa ka raadinaynay dhibaatooyinka ma ogeyna maxaa wax gadaal oo ka keenay aabo 100 mar ka badanaa dhahaa aabo dhibaatooyinkan iyo banoonigan iska dhaafana soo niga diiday warniyo waxaan muxuu ugu xiray silsilad ma ugu xiranay ilaa meeshaan hal mar leega bixi hawshaan howl dheer waaye ani shaqaa kasoo tegay waa kasii daha waa kaasii tagaa dhalinyaradii asxaabta meelaha sii weyda aabo haye aabo aaba hata hadduu iga tegi jaanisa haystaa maamadii inaa u tago waaye hallo milyuun guriga usoo socdaa ee maamada u sheeg inaa soo socdo haye inta fariiso hooyaa u wacaaye mideeda kale ani adi waa xisaabtameynaa waxaa teleefoonkii igu dhegaysataa sheegayey hooy waa kanaa hooy maxaa kugu dhacay nin weyn baad ahayd soonaga ballanaheen intaan dhan maxaa ku maqneed waxaa hadda kuugu imaada maama inaa kuu sharaxa waa waxaa ku maqnaa haye waaye maxaa ku hela bal hooy marka hore soo fadhiisa anaa wax walba kuu sheegaya ugu horeyna horta aniga dhibaatada ay haysato hooyo iima noolo aabbaa isoo korsado aabbaa ilaa intaan isoo leekeysiiyey barnaamijkii markaa aabbo ula tegan wuxuu igu dhahay ugu horeyn waa inaad shaqaysaa kadib markaasaa kuu ogolaana inaad gabadha guursatid gabadhan hadday uur leedahay hadda gurigooda ha ku dhasho marka culeysyadaasaa iska jiro hooy waxaa kuula soo laabtan waa waaye hadda adi booska hooyaa ii taagantahay maxaa sameeya ilmaha haddaana waalidkooda garab taagneyn waxuu hagaagaya ma lahan adigana wiil fiican baa tahay oo dadaalaya ubadkiisa ka fikiraya hadda waxa keliya kuu samayn kara waxay tahay inaa aabbi ii geesaa isbarano annagaa waalid ahaan isku fahmaynay diyaar oo kuu balamina laakiin aabbahay anaa ka aqaano oo madax adag yahay inay waxaas ka dhadhacayaanna ma umaleynaya haddii uu aqbali waayo taas waddada xigto aa samaynayna maxay noqon kartaa dib ma laha hooy ha ka welwelin beer wax dhalo waayo wuu fahmaa hadday dhici weysane anaa ku garab taagan haye hooy anaa kuu balaminayo waana kusoo wacaa insha allah haye wiilkayga niyadda khayr u sheeg adduunyadu qarribana dhaxaariyo dhibaatiyo halaalaas badana qofka aan waraaqdiyo haylada u diraya isbedelka alle imaata maxay tahay moobeelka maxay igu dhageysanaysay runtiisa wax kuugu sheegaa waaye shaqana waa la ii diro waa kuu sheegaa u malaynaa marka intaa waxyaabahaas ku xirxiraayay aheedee kas kuguma dhageysan teleefonka maantana ugu dambeyn waa kan oo ku imaaday adii hooyo maxaa kusoo wada hadasheen adi hadda arrintu way kaa gudubtay anii hooyaa ka wada hadleyno ee kana soo salle may nolosheeda noqotay inaa qolkan la iskaga jiro ninkan ma iisoo laabanayo xoolo camal oo iska baxabo tan kale ninkan muxuu ugu heesan karaane maxaa ani ogeyn oo isaga ogyaa maa jira macnaha mas madaxa laga dila camal arag si ay ugu wareegsato allaa mar ani adii aabbaha guri ma wada degi doonaa awoowaha ma noqon doonaa midna fahmo
xaaladan mar haddaa ka bixi lahayn waynoo qurux badnaa lahayd. hooyadeena murugadan dhan way iska iloobi lahayd. farxadee wax walba u noqon lahaa. farxad walba aabbaha samayn karo. awowahana inuuna fahmaa fiicnaan lahayd. ilaahay khafuur raxiim waa wax walba wuu awoodaa. walfoolxumada aanay isku horseedaysa iyo rafaad iyo dhib ayadoo wax walba si sahlan ku heli karto. yaa wax u diido bal. wallee dhalinyaro ma jirto, gabdhana ma jiraane. rabbi nasiibkeeda ha ka roonaysiiyo. noloshaan inaa ka baxno qurux badnaan laheeda. mar noloshaan haddaa ka bixi lahayn waynoo fiicnaan lahayd. hooyo nasiibkaaga ilaah ha kaa roonaysiiyo. heedhe ani sida wax waan laa iskula kay hadline. orod ummad ilaahaa soo geli kartay gudahaas iga gal. ninkaan arrimo imalaya il dambe haddaa isagto la taalaa. haddii aabe iyo walaalkii waa iraadinayn maxaa u sheegaane tangada guriga 4 beriyaa ka maqnaa maxaa sheegaane suug anaa aqaan waxaa dhaa 4 beri gobol ku maqnaay saaxiibkii la joogaa dhaha taleefankana oo igdansanay ilka casana waa ku dhedheelaay waraani weyn baa taa waxa ka hadlaysa maxaa waaya ku afduubtay wah aabilka casada dhaama waxaas ma ku sheegay waxaas run maaha aabo nin weyn aa taani ma ugu dhedheelayna wal lagu dimaarta ninka waa haya ee gurigeyguna joogaa adii anise waxa idin karawaa ina iraacdaan saa igu cadeysaan inuu asiyahay in kale. anise qol ku jirtaa haddana banaanka uma bixi kartee mar hadduu telefoonka kaa qabto asaga le waa cadeyn kale ma u baahan tahay. weli dambiga uu leeyahay xitaa uma sheegin. waxaa rabaa ina ayada ka gurgeeyo si uu wax walba u xaqiiqsado dambigiisa afkiisa uga qirto. gabadha xaaladeedu waa ogtahay deriskana inay arkaan ma qurux badna soo maaha. deriska maxaa daba dhigay iyada in la qabo in kale waxay ka ogyihiin male caadi waaye. anisoy kaal hooy hooyo buwaa raacinaaye xijaabiyin soo xiro orod. aaba ninkaas iyo aniga kaftinkii dhedhesh waa naga dhexaysaa. aawada kaftadaa maxuma taleefankaaga maxaa damiiteeda kale ani maartaana wadna xanuun igu rido. aaba dhalinyaraha saaxiibanaha baadii dalxiis u raacay meeshaas noogtaa jaajar ma lahani. inaa weynaataa kuu maleynaa bax wejigaaga le ii qari orod. aniso adoo saana intay u socotaa hadday dadku ku arkaan ka waran. ma aqaan hooyaday dhada buwa raacayna xijaab soo xiro. ay waayihii banaanka markaa u bixiis xijaabku si fiican saan iskaga celi hayadhe. haye talow ninka intuu ka baxay. aawo ninka waaba yaabana ninka qolkaana igu jira meeluu ka baxay ma aqaane. maxay taa maada qof weyn heen anaga maan ugu dhedheelaysaa maxay taa qof dhan oo keligiis qol intaas kaga xirataa iskaga tegaysid. guriga cidna maysan joogin anna gacmuhu iga xirnaa wuuna baxa isma laheene. haddaa dhedheeli rabti dhalinyarada lagu dhedheelaa maahane waalidkaaga laguma dhedheelo. haddaad rabin gabadheediina wax u quutay bareel cad wax iigu sheeg. qof baa leedahay meeshan cidladaa kusoo xirta markaasaa anagana soo wadaysaa war naga tag nabad gabadheedi. aniso intee aadeen warisii waa soo dhaqsateen be. kan waalno adeer dhalaa inuu dhaha ninkii ahayaayo qol eberna geeyey. kaas hooyo loo mashquulinoyaa wejigiisa ka arkaa inuu wax soo wadin. hooyadaas wareerinoos maahane ani ninkaas in la raadiyo marabin ilmihayga naas korsanaayo. saasaa wanaagsanba beri asaa soo raadsanayay laakiin hooyo waalid waay soo maahan. haa dadaalay ka tahay. abaayo kii xuma ayaa rabaa ina ka waalo sababtoo aaba gurigan haddoo ka baxaba taleefon dhammiiga qabanayabo waa waca adna waxaa tiraahdaa milyuuna xanuunsan soo guriga orod ugu imaado. maxaa u waale miska dhaaftido asbooy waa la mii naxariisanay adi serious uga dhig. dumaashiyaas ugu cuso waraa halow dumaashi ninka taleefanka iska lahaa ma joogo. halow ma hadashid yaabay adi walaalkiis waaye anas miya yaabaa adi wariya anas maxaa kugu sheegaya ninka taleefanka iska lahaa ma joogay. war ana qof kale haskee dhiganay la hadal war qoftaan soo qaldoontaa umaleyna hadhow markuu imaadaa ku soo bacaa. naado dumaashiga iima wicnaa umaleynaa wah qoftaan sida aqaani ma aan miyaa taleefanka kacsan maxaa u keenanay.
waa ku wacay anaska ku heesiyaa waa anas naanina aqaano iyo cod ekiye lambarka iska fiir saxmiya naasi waay lambarkee maxaa lagu dhahay ma joogaa liidhaa walaalkiisa iga qabtay adi ninka maxaa intaas dhan ula doodaysa yaa ku baray wiila aqaano codkiisii leekaaday oo kaalay anaska aqaana miyaa mise mid kale teeda kale asii dumaashigay maxaa isku geeyay teleefankiisa iyo war cusubaaba soo yeeray